الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد waxaynu galay habeenadii cibaadadu ay badanaysay waa 10kii Ramadaan u dambeeyay habeenkii 21aad laylatul qadriga Allah ina waafajiyo amal khayr lana Allah ina waafajiyo waxaynu wax yar ka oranaynaa كيف نجد حلاوة العبادة عبادة معان كذا سدين وهلي كرنا قضب كاسو عن إسلاي هاي إنكم بدنا أو إنكم يريه سلف الصالح سلفنا الصالح تذكرني هراء أكسنا عبادة معان بيقول هاي معان marka sidaynu isugu shabihi karnaa qisaskooda ama qisooyinkooda marka dib ugu noqoto yaa bay leeyihiin wuxuu ka noqdaa dhab markuu ku dhadhamo ayuu dhab ka yahay iimaanku wuxuu leeyahay dhadhan nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood qofka laga helay buu yiri macaankii iimaanku dhadhamiyay wajada xalaawata al-iimaan ilaahay rasuulkiisa inuu ka jecel yahay cidii ka soo hadhoodhan qofku jeclaana ilaahay daraadii inuu jeclaado gaalnimada inuu naco sida uu nacayo dabi lagu rido kale salaadu waxay leedahay macaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu adduunka ahaysaan anigu waxaan u jecelahay xaasaskayga iyo udgoonka حبب إلي من دنياكم النساء وطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة الشيء وحي كوكب وستان كل راحة يستاه صلاة أي شيء كوكب وستان كل استراحة وكل في السايا وكل نستاه حديث مرر بضم مقشين بلال نوح لنا يا رحنا بها يا بلال صلاة إنه أقول راحة waxaad ku raaxaysanaysaa waxaad ku dhadhamaya wakana ida hasabahu amru salla arin culusi markuu ku yimaado salaad ku nafisaya wastaciinu bisabri wassalaa kaashada sabirkiya salaada macnaheedu waxa way ku istiraaxo macaansada dibku si idinka haro saadaradeed ba qiyaamkan habeenadana masala jooganaynu badinayno nabigu aad buu macaansan jiray laba asxaabi baa ka waramayo mid waa Abdullah ibn Mas'ud nabi maxamed baan ku daba tukaday buu xadiidkii saxiix ahaa hatta hamamtu bi amri suu ila aan doonay buu arin xun maxay hayd baa la arinta xumiyood markaan daalay ayaan doonay buu inaan iskaga goosto on ka hara nabiga ila nabiga salaad laga hara wax wanaagsan ma naftii ay qabatay waxa ka sii daraa Xudayf nabiga ku daba tukanaya buu ragcad kaliya oo baqaru dhameeyay oo alu imraan oo nisaa oo shanjis iyo dheera mar walba waxaan isleeyahay Allah armuu 10 armuu boqolka ku muu suuradan ku eegay tolo malaata kalu boqol gaars nafti baa hays waxa keenaya dhadhanka cagaha sadabeetana bararaya xigmadan aan Aisha ay u leedahay waa kuwa nabi maxamed cagii ku bararay deeni shanjis ragc ku akhriyay ragcad kaliya xana cagu bararay شنت سود النبي محمد أخريه ومعلن كيسنا ملقاها كان يرتل ترتيل يتجواب يتصبيح يكون احترى يا رسول معانين يا رسول صلى الله عليه وسلم قرديس والله يا با ان جس ولي بس ساعات كل هذا قال لك ورا انت شقتك تين لاكبر ايو تاغنا رسولك صلى الله عليه وسلم رقعتها ددن با كينيا waxaan ku dhadhamay in kaadii kubad la daawanaya ama film dadka xiiseeya intay taagnaadaan kursiba ma doonaanba inta fadhida waxa ka badan inta istaagsan ama taagan saasa loo taagan yahay ma dareemaan bararka ay waxa 3 saacadood 2 saacadood baa la taagnaanaya odanaysa wartadku meel naf balahayn u xiiseynaya lahwiga iyo lacibkaas u xiiseynaya waxa uu lahaa imaamkii weynaa ee faqiihaha saaxibul madhhab Sufyaan ath-Thawri anugu la afrax بقدوم الليل هذينكي وان كفر حابول مركو سو غلايو واي نفتayda jeclaysanaysa buu qiyamkiiyo cibaadadii habeenkii
waxaan ka naxaa buuri subaxdii marka waagu baryayo eeg waa cagsigeenna waayo mashquulkii baan gelayaa buuri adduunyadii hawlihii kale innaguna sidaa cagsigeeda weeyo shaqatag iyo lacag raadiskii iyo cuncunkii maalintii baynu ku farxaynaa habeenkiina madowgiisaad ka naxaysa isagu laakiin wuu ka faa'iideeyey marka salaaddu macaankaasay leedahay qur-aankuna macaan buu leeyahay akhrintiisa qur-aankan aynu dhegaysanayno haddaad akhriyaysa iyo haddaad dhegaysanaysa waa inuu macaan kuu sameeyo lahu xalaawa cuثmaan ibnu cafaan oo raggii ku qabowsaday qur-aanka ah ee macaankiisa dhadhamiyey wuxuu leeyay low dahurat quluubuna maa shabicnaa min kalaam illaah haddii uu qalbigeenu xaadhnaan lahaa oo culnaan lahaa oo nadiif ahaan lahaa ilaahay kalaamkiisa kama baynaan dheragna ma baynaan kala joojineenba nin kale la hadalkii iyo islaan la jecel yahay sheekadeedii iyo ciyaal iyo waxaasoo dhan waan iska dhaafila wey ilaahay ubaan la sheekaysan lahay subxaana wa tacaala sadaqaduna macaankaasoo kale ay leedahay waata keentay abubakar iyo cumar inuu xoolihiisii mid waliba soo shubayo war ka kala daayo war maxaad adigu reerkii u reebtay ilaahay rasuulkaan u reebo bal yaa inaga fujinaya 2.5% baa laynaga fujin lahay 2 saka ah 2 sakadaa buu kuleeyahay way badan yihiin war waxaanaan bixiya waaba 10,000 laakiin 790 iyo barhka ma eegaya ay ka soo baxday 2 barhku eegaya waana macaanaanin weli cilmiguna macaan buu leeyahay shabaab cilmigu macaan buu leeyahay cilmigu hadduu ku macaanaan lahaa facebooka maad macaansateen iyo whatsappka nagta aad ku hayso ee saacadaha aadka u faraha badan kaa qaaday cilmigun baad ka macaansan lahayd sheeko yar iyo majaajilo yar iyo waxaasaa waktigii naga dhameeyey oo qur-aankii mashquuliyey oo cibaadadii kaa lumiyey waxaad xisaabisaa maanta adigoon isyeelyeelayn facebooka intaad eegeysay ama social mediahaba iyo whatsappka majaajilada lagaaga soo dirayo saacadaha ku baxay xisaabi si dhaba maanta iyo caaw ugu kuurgal waad yaabi inaad kala kacsan tahay waad arki doontaa cimrigaaga nabigu wuxu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkii صaxiixa manhumaani laa yashbacaani طaalibu cilmi wa طaalibu dunya laba ma dhargaan qof adduunyo doona iyo qof cilmi doona waa qofka si dhaba cilmiga u doonaya waxaad ka soo qaadaa un adigu adduunyada markaad raadinaysa ama shaqo tag tahay waxa ugu badan inaad raadinaysa waa inaad wax kordhiso inaad faa'iide hesho inaad raasamaalka ilaaliso inaad sanad walba wax kuu kordhaan waxaasaad ku xisaabtantaa marka qofka cilmiga macaanka ku haya wuxuu la mid yahay kaa maalka macaanka ku haya oo kale hadduu cilmigu u macaan yahay wey saa daraaddeed baad gabayadoodii iyo markaad dib ugu noqoto a'imadii aada iyo aada ula yaabaysa waxa uu lahaa wasahri litanqiixi اlculuumi aladu lii min wasli ghaaniyatin wa tiibi canaaqi soo jeedkaan u soo jeedo masalooyinka inaan kala hufo oo aan kala haadiyo aladu ilay aw aladu lii waxay iga macaan tahay islaan aroos ah oo udgoonkeedii wadata bu oo soo carfaysa oo soo kankamaysa aroosad udgoonkeedii wadata aniga masaa'ilkaan kala shaandhaynayo ayaa iga qiimo badan buu lahaa ومحبرة تجالسني في نهاري أحب إلي من أنس الصديق هذا الشيخ صاحب كانوا قلنا كويس شيخ أسوح كلية أنا قلت توادى أي قلن كان ما أنت ورنا استريو صاحبي يقص لي أي شيخ يتحسن كتشعله حاشية هي بالرفض هي أنساو كلا وده بورك له أيان كتشعله يبول راشين بدن الله يسوق دقوا معاه ولضمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق ninka sheekhaah waxay dhigaya intuu dharbaaxada qaadayno dharbaaxadu halka ay ga dhufanaya macallinkaygu ayaan ka jecelahay sharaab macaan oo khamriiluhu cabay khamriiluhu ku cabu waalanayo ama qofka sharaabka dhadhanka ku haya anigu dharbaaxadan ka jecelay ninka waxay dhigaya dharbaaxadiisan ka jecelahay waa wax ajaayib oo markaad adiguna canaan baad ka cararaysa inuu yidhaah maxaad u habsaantay maantaad firdhatayba ood leeda waa adadagii almuhim cilmiguna macaankaasuu leeyahay marka ilaa aynu macaankaa gaadhno aqoon kordhin kari mayno macaankaas isagaa maxaynu ku heli karnaaba markaa isweydiinaya kow waxaynu ku heli karnaa mujaahadatu nafs waxaynu maqaaladahan ka soo qaadanaynaa raggii nolosha horteen tijaabiyey ee taraajimka laga qoray
maraajicda taraajimkoodu ka qoran yihiin taariikhdoodii kutub badan baa laga qoray siyar aclaam الnubala ka mid liلdahabi raximah الlah waxaa lagu gaari karaa mujaahadaة الnafs nafta inaad ka adkaato haddaad naftaada ka adkaan weydo ciyaalka kama adkid reerka kama adkid mujtamac kalena daaba ninkii tiisaba dar yeela ayaa tu kale ku dara waa dhab weeye ilaahay baa wuxu uhi والadiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca اlmuxsiniin والadiina jaahaduu qeydka eeg la socda fiina baa la socota fi lfuluusi maaha wa fi lmarati maaha wa fi tahriibi maaha laakiin waa fiina way qaydanti qofka annaga daraadaya bahasha naftaana soo ogolaysiiyey imaam aimada ka midi wuxuu lahaa haabit lbunaani baan filaya inuu ahaa ardayga anas 20 sanay bahashaasi ilaahay ka warwareegayso naftayda isteerinkeeda aan ilaahay ku hagaajinayay 20kii sane ee dambena way ogolaato gaarigu waddadu haystaa buuli 20 sana ayuu raggii hore la rafanayay marka tan ilaa aad ilaahay ogolaysiiso macaankani ma jirayo waxa labaad oo aynu ku dadaalaynaa macsiyada inaynu ka fogaano nin aimada ka mid baa wuxuu lahaa maalintan macsiyo iyo gaf ku dhaco waan iskartaayo habeenkii waxaan ka caajisaa cibaadada waxaan isarkaa anigoo cibaadadii ka luloonayaan isarkaa markastoon maalintii gaf ku dhaco waxay naga saacidi karaya qur-aanka markaad macaansatuu ku wanaagsanaado cibaadada kalena la mid bay noqonaysa waa miftaax weli waynaan badsan qur-aanka safmar buu inagu iyo weli inamuu biyo dhigin akhriskiisu markaad qur-aanka ratibato ee adduunyadu kaa mashquulin weydo ee aada isaga macaansato cibaadadana wuu kuusii gudbinaya waxaa inoo furaya sunnayaasha aynu badino sunnayaasha noocyada kala duwan mid muaqatoo wakti leh iyo mid mudlaqahoo sii daysan inaynu sunnaha ku dadaalno xadiidkana ka akridaan aynu mar walba ka akhriyayna 40ka wamaa yataqarabu cabdii axabu ilaya min الnawaafil wamaa yazaalu cabdii cafwan wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bالnawaafili xataa uxiba faإida axbabtuhu kuntu samcahu اladii yasmacu bihi wabasarahu اladii yubsiru bihi ilى akhir الxadiid waxaan ugu jecelahay addoonku igu soo dhawaada waa faralka buu ilaha yihi xadiid alqudsiga mar kastoo sunnaha uu badsadana wuu igu soo dhowaanaya ilaa aan jeclaado mar hadduu cibaadadii dhannan ku hayo ilaahay baa jeclaanaya ilaahay baana ilaalinayo xubnihiisii o dhan wada ilaaliyey codsiyadiisii o dhan baan aqbalayaa buu u dhaartay ilaahay wallaahi haddii uu codsi ii soo qadimo waan ka aqbalaya hadduu cid iga magan galana waan ka ilaalinaya meel buu gaadhay darajuu gaadhay qofkaas waxyaabaha inoo kasbi karaa waxaa ka mid a saaxiibada wanaagsan inaynu ku dhowaano dadkii saalixiinta markay yaro daalaan waxay u tegi jireen saaxiibada wanaagsan nin aclaamta ka mid abaa wuxuu lahaa anigu markaa yaro daalo maxamed ibnu waasic baan u tegi jiray oo lagu yaqaano cibaadada kaana wajhahu wajhu thukla wejigiisa markaas sidaa u eega waxaan moodi jiray habar goblante wejigeed dee weji cream la mariyey oo la naaxnaaxiyey oo saabuuna la mariyey iyo mid sujuudun loo badiyey qolof yeeshay wuu kala duwan yihi marka islaan goblantay oo aan saliid iyo cream toona marsanin oo wejigeedu qolof yeeshay saas oo kaloo ahaa buu wejigiisu cabdillaahi ibnu mubaaragna wuxuu lahaa anigu markaan daalo fudayl ibnu cayaad baan u tegi jiray markaasaan hore u dhaqaaqi jiray buuhan karaar qaadan jiray markaa nina marka aada u tagto sunno iska daayo faralkii baa kaa naaqusaya wax kalaad xusuusanaysa kursigii siyaasaddaad ku ruqaansatay lacagtii oo la ururiyey reer hebel oo la dhex galay cafaaro balaayo kalaa kugu guuraysa nina ilaahay baad xusuusanaysaa iyo aakhire iyo diin waxyaabaha inaga saacidi kara waxaa ka mid a rabbi bariga allahuma xabib ilayna aliimaan wazayinhu fii quluubina wakarih ilayna alkufra walfusuuqa walcisyaan wajcalna min alraashidiin waa sidaa uu ku hambeleeyey rabbi subxaanaه wa tacaala waxababa ilaykum اliimaana wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra walfusuuqa walcisyaan ulaaئika hum الraashiduun waxababa ilaykum اliimaan iimaankii baa ilaahay idin jeclaysiiyey buu asxaabta uga markhaati kacay iimaankii baa macaan ula wey markaa ducaduna door weyn ayay ku leedahay inaynu horu marno meelaynaan gaadhinna way sheegaan culimadu laakiin inaynu xaamxaamanno ay tahayoo derajada ah alunsu billaah inaad ilaahay uheshato waalkhulwatu maca inaad ilaahay uheshato subxaana wa tacala o intoo dadka ka yaro dhexbax bakhaarkaad ka yar baxaysaa waxaad ka baxaysaa saaxiibada dhexdooda ehelka iyo ooridii baad ka yaro durkaysaa waad khalaaweynaysaa meeshaad doonto ku khalaawe adiga ilaahay baa isku gooni noqonaya
أحد أعلام السلف باوح لقويلي إن بدن بعض هالكن شوكتاي ميانا عدلونين أو يستوحش مع الله أحد وحلين مقف إلهي وهشنا يا عدلالة أنا قايل إلهي بأن الله أنا وضفقي نايو أن بري يايو أن عبادوين كي خاص كأ وديبنا يا نشجعنا يايو تيانو إلهي بأن وهشنا يا ما عدلاني ملك استون شوفه كوري يا حبس وايس وكايم هدان عدلة شو وكان رسولك تلمامه صلى الله عليه وسلم ذاتك وحيابا قيامه الله أبوه رأينا يوحى كم إذا qof ilmeeyay maxay isaga oo gooni jooga isagoo kaligiya ayuu ilmeeyay oo marka ilaahay uu heshanay subhanahu wa ta'ala ilaahay daraadii buu looyay marka arrimaha dhowrka ah 6-7 ah aan dareeriyay waa asbaabta lagu helo macaanka maaragtay cibaadadan marka intaynu i'tikaafka ku jirno intaynu taraawiixda gudanayno intaynu quraanka akhriyayno intaynu tahajjudka wadno intaynu cilmiga dhageysanayno mar walba isku day bal xawilnaanta inaad iska ilaaliso nafta aad ku soo dabaasho cibaadada iyo dareenkeeda iyo macaankeeda dadka saaxiibaduna aanay ku duufsan oo aanay ka jeedinin وهذا ما أقوله واستغفر الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان